al-shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda ay ku leeyihiin degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose sida uu ku soo waramayo wariyahayaga magaalada Afgooye Xasan Salaad Saxafi. kadib salaadii maqrib ee xalay xarakada al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan xaafadda Buulafoolio oo ay fariisin ku leeyihiin ciidamada dawladda Soomaaliya iyadoo uu yahay fariisinkan Buulafoolio goob ay waqtiyo badan soo weerareen xarakada al-shabaab haba ugu badnaatee waqtiyada uu guro wabiga Shabeelle. xiriiro dhowr ah oo aan la sameeyay maamulka iyo saraakiisha amniga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaysan ka bixinin wax jawaab ah oo ku saabsan weerarkii xalay ay ku soo qaadeen xarakada al-shabaab degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose balse warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya inay jiraan 3 askari oo ka dhaawacantay ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugnaa fariisinka xaafadda Buulafoolio ee degmada Afgooye. sidoo kale weerarkan la mid ah ay xarakada al-shabaab ka geysteen deegaanka Tixsiile ee duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose iyadoona aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay. dhanka kale deegaanada iyo degmooyinka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa ka soo cusboonaanaya dagaalada u dhaxeeya beelaha wadadega gobolka Shabeellaha Hoose iyadoo ayna haatan xasaradaha ugu badan ay ka taagan yihiin deegaanka Ceelasha Biyaha iyo degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose kuwaasi oo ay ku dagaalameen maleeshiya beeleedyo ayna ka dhasheen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray maleeshiyadii dagaalamay iyo dadkii shacabka ahaa oo ay ku dul dagaalameen. maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaanan ka warbixinin xaaladaha kacsanaanta ah ee ka soo cusboonaaday gobolka Shabeellaha Hoose iyo weerarada teelteelka ah ee xarakada al-shabaab ay ku soo qaadayaan qaybo ka mid ah degmooyinka iyo